madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa xalay ka degay magaalada Ankara ee dalka Turkiga kadib casuumaad rasmi ah oo ka helay dhigiisa dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa Ankara u tagay ka qaybgalka wareegga saddexaad ee wadahadallada u dhaxeeya dalkeena Soomaaliya iyo dalka Itoobiya. Wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur, wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi, taliyaha nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Sambalolshe iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore Mahdi Maxamed Guuleed. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay hore u sheegtay inaysan wada hadal toos ah miiska la fadhiisan doonin ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed inta uu ka laabanayo heshiiskii ay dowladda Itoobiya la gashay Somaliland iyo in ay ixtiraamto ilaalinta madaxbannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu mahad celisay dowladda iyo shacabka Turkiga dadaalkooda joogtada ah ee ku aadan fududeynta wada hadalka iyo hogaaminta geedi socodka lagu raadinayo xal waaro oo laga gaaro arrintan muranka badan dhalisay ee ku saabsan heshiis beenaadka Itoobiya la gashay maamulka Somaliland.